inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tacsiil loo sameeyay fanaankii weynaa ee hobalada Waabari Maxamed Axmed Kuluc ee dhawaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa ayaa waxa lagu qabtay magaalada tan London. taasidan ayaa waxa isugu yimid fanaaniin aad u fara badan oo ay ugu horeeyeen fanaaniintii isaga la soo shaqeysay ee hobalada Waabari oo ay ugu horeeyeen Xareeda Ismaaciil Duniya, Faynuus Sheekh Daahir iyo fanaaniin kale oo aad u fara badan. taasidan ayaa waxa lagu qabtay hoygii ay magaalada London ka deganaayeen caruurtii uu ka tagay Maxamed Axmed Kuluc ee ay hooyada u ahayd Aamina Cabdullaahi Cumar Aamina Dhool. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. magacaygu waxaa la yiraahdaa Xareeda Ismaaciil Duniya. waxaan halkan u fadhinaa maanta tacsidii fanaanka ugu dambeeyay tacsidiisii Maxamed Axmed Kuluc. fanaanin waa hareen laakiin fanaan sidiisa u qaaliye ma harin. waan wada geeriyeysanahay. naxdin baan la hadli la'anahay. una malayn maayo isagoo kale inuu soo bixi doono. hadduu jirana wuu daahi doonaa. waxaan ku soo koobayaa ilaahay jannadii ha ka waraabiyo. magacaygu waa Faynuus Sheekh Daahir. inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu murugeysanahay oo meeshan aan u fadhinaa fanaanka nagi weynaa ilaahay naxariisti janno Allah siiyo Maxamed Axmed. anaga waxaan ahayn walaalaan ahayn anigoo yar baan fanka soo galay ilaa intaan hadda aan halka aan fadhiyo inta waxaan ahayn dad walaalo ah. magacaygu waxa weeye Khadiija Maxamuud oo ku magac dheer Qalanjo. halkan waxaan u fadhinaa tacsidii walaalkayo Maxamed Axmed. ilaahay waxaan uga baryaynaa marka ugu horeysa naxariistii janno inuu ilaahay ka siiyo ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan gaar ahaan ehelkiisii iyo caruurtiisii. magacaygu waa Shamsi Bashiir. maanta waxaan halkan iskugu nimid geerida naxtinta leh ee ku timid walaalkeen Maxamed Axmed. waxaan leeyahay walaalkay samir iimaan Allah naga siiyo Soomaaliyo idil samir iimaan Allah ka siiyo qaar ahaan ehelkiisa caruurtiisa iyo hobalada Waabari. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. anigu magacaygu waxaa la yiraahdaa Faadimo Maxamed Axmed Shaxshaxley. waxaan halkaan u imid tacsidii walaalkay Maxamed Axmed Kuluc Allah u naxariisto. horta magacayga Nimcayaasi baa la yiraahdaa. halka waxa joogta fanaaniintii hobalada Waabari oo dhan cid ka maqnayn in soo socota iyo in fadhida waxaan u fadhinaa iyo bulsho kale fara badan. tacsidii walaalkayo maanta naga baxay ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu godka u nuuro. magacayga waa Amaara Cali Shoobare. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaaha u naxariisto Maxamed Axmed nin walaalkeen uu ahaa ilaa iyo maxay ahayd Soomaaliya ilaa iyo Cardiff waanu wada deganeen waanu wada nooleen ceesh baynu wada cuni jirnay dad isku waxaynu ahayn. magacayga waa Cabdirasaaq Gaadho. waxaan halkan u fadhinaa tacsidii fanaankeenii weynaa ee ugu dambeeyay fanaaniinteenii waaweyneed ee qaaliga ahayd Maxamed Axmed Kuluc oo geeriyooday Hargeysa ku dhintay. waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo. ugu dambeyntii caruurtii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Maxamed Axmed Kuluc iyo hooyadood Aamina Cabdullaahi Aamina Dhool ayaa halkaas ugu duceeyay in jannadii Firdawsa ilaahay ka waraabiyo. bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaan uga duceynaynaa aniga iyo caruurteedoo dhan labada gabdhood oo ila fadhiya iyo shanta kale labadaana isla waa ka dhiiran yihiin way ku ooyayaan kaamiradaha ama dadka badan oo hor fariista way ka wada yihiin aabahood geeridiisii inkastoo aan la soo celin karin. Maxamed Axmed wuxuu ahaa caruurteeda aabahood wuxuu ahaa nin aan dambi lahayn. wuxuu ahaa shaqsi bini aadan oo ilaahay jecel yahay. qofka markuu ilaahay jecel yahay ummadda dhan baa raalli ka ah. aniga raalli baan ka ahay caruurtiisa raalli ka yihiin. ilaahay jannada ha geeyo qabriga waasac Allah uga dhigo. Yuusuf Garabay, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.